wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ee dawladda Puntland Cabdiqafaar Cilmi Xaange oo ay weheliyaan mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda Puntland ayaa garoonka diyaaradaha Jalaal Maxamed Abshir ee garowe ku soo dhaweeyay wafdi uu hogaaminayay safiirka Hindiya u fadhiya Soomaaliya Ambassador Rahul Jabra oo ay weheliyaan mas'uuliyiin kale oo ka tirsan qunsuliyadda safaaradda Hindiya ay ku leedahay Soomaaliya. wafdiga ka socda dawladda Hindiya ayaa maalmaha soo socda garowe ka bixin doona dalku galka Hindiya ee dhinacyada caafimaadka, dalxiiska iyo waxbarashada. waxaana intaasi kadib wasiirka qorsheynta Puntland oo weheliyay safiirka dalka Hindiya u fadhiya Soomaaliya ay si wada jir xariga uga jareen xafiis laga hirgeliyay garowe kaasi oo adeegyada ay u baahan yihiin ka caawin doona dadka Hindida ee ku nool gudaha Puntland. wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ee dawladda Puntland Cabdiqafaar Cilmi Xaange oo intaasi kadib ka hadlay goobta ayaa sheegay in ay ka wada hadleen safiirka Hindiya sidii loo fududeyn lahaa dalku galka Hindiya ee dadka u aadaya arrimaha caafimaadka, waxbarashada iyo dalxiiska, iyo sidoo kale ganacsatada reer Puntland iyo ganacsatada Hindiya in ay yeeshaan xiriir dhinaca ganacsiga. maanta runtii waxaana soo booqday safiirka Hindiya iyo wafdi uu hogaaminayo oo ay ka mid yihiin qonsulka Hindiya Soomaaliya u qaabilsan iyo team kale 15 bisha 2020 runtii farxad bay noo tahay inaan ku soo dhaweyno caasimadda Puntland garowe. horay ay u yimaadeen sanadkii hore wuxuu daaran yahay wafdiga booqashadiisu si wadista xiriirka hore u soo bilowday xoojinta xiriirka Soomaaliya guud ahaan iyo wadanka Hindiya. waxa ayana ku dhex jirta halkan lagu qaban doonaa oo maanta iyo bariba socda loo fududeynaya dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan fiisaha dalka Hindiya oo dib badan kala kulmi jireen oo loogu safri jiray Kenya. waa la soo fududeeyay maanta halkan waxa ka qaadanayay dad ka kala yimid gobolada kala duwan ee dalka. waxaan hadda meesha sidoo kale ku daahfurnay xafiis xoojinta Soomaaliya iyo Hindiya ah oo dadka community-ga Hindiya halkan ku nool adeegyada u baahdaan si ay u helaan. waxyaabaha kale oo runtii aan safiirka ka wada hadalnay aan doonayna inay laga wada faa'iideysto waxa kamid ah barnaamijyo la xiriira dhanka waxbarashada, deeqa waxbarasho iyo tababarada shaqaalaha dawladda. dabcan waa sii wadi doonaa sida ugu habboon oo looga wada faa'iideysan karo. sidoo kale waxaad la socotaan inay yimaadeen shirkii u dambeeyay maalgashiga Puntland lagu qabtay. safiirku wuxuu ballan qaaday inuu maaragtay aad u dhiirigelinayo ganacsatada dadka Hindida ah oo dalka Hindiya si ay halkan u yimaadaan. dad badan baana muujinayo oo ganacsatada Hindiya inay ka faa'iideystaan kheyraadka iyo ku jira Soomaaliya si looga faa'iideysan lahaa. waa rajaynayna inaan soo dhaweyno wax kasta iyo sektor kasta oo ay maalgashan karaan. safiirka dalka Hindiya u fadhiya Soomaaliya Ambassador Rahul Jabra ayaa isna sheegay in ay Puntland ka caawin doonaan tababarida shaqaalaha dawladda iyo sidoo kale in ay garowe dalku galka ka qaataan dadka arrimaha waxbarashada, caafimaadka, ganacsiga iyo dalxiiska u aadaya dalka Hindiya oo awal ay u doonan jireen magaalada Nairobi ee dalka Kenya. isagoo sheegay in ay tani muhiim u tahay dhammaan dadka Soomaaliyeed maadaama ay garowe tahay meel u dhaxaysa inta badan magaalooyinka waaweyn ee dalka. I am so happy to be here today. It's a very special occasion because we have inaugurated the Somalia-India Friendship Association. So this is a friendship that goes back thousands of years between the two countries. And now with the current little difficulty in getting visas, there was sort of some hesitation from people visiting. So we thought that why not we come here to deliver the services right here in Somalia. So in Puntland, Garowe, we are very happy. More than 200 people have registered for this 2-day camp.